روح دمرة ووايلة وإسلام وايي شيئا أيا وحا كحنون صديئنا وميل بادية joogta inankii markay meelihii ay la marmari karaysay iyo dhakhtaradii ka ag dhawaa oo la tagtay waxa lagu yiri waxba lagama qaban karayo dhakhtar hebel oo markaa nin caan ah oo la sugo waqti dheer ayuun baad ninka daweyn kara oo dawadiisa lagu la daali doonaa islaantii waxay tiri way iska alla bariday aqalkeedii yaraabay ku alla bariday ilaahay bay weydiisanaysay inuu caafiyo ilmaheeda doctorkii caanka ahaa ayaa magaalooyinka iyo marba meel ka tagaayo mid kale u tagaayo dad baa loogu sii ururiyaa buko oo uu markaa daweynayo ilaahay baa dabiib iyo dawaba leh diyaarad buu qaatay waa nin waqtigiisu daqiiqadihiisu ay xisaabsan yihiin diyaarad buu qaatay ama uu raacay wuxuu tegay magaalo kale wuxuu doonayay markaa inuu ka sii raaco mid kale roob ayaa jawigii isbedelay waxaa la yidhi diyaaraddu ma kici karto muddada intaa leeg waad fadhiyaysaa saacado badan oon isaga kaba go'ayn ummad baa sugaysa go'aan buu qaatay inuu gaari qaato waxbuu xisaabiyey saacadihii dhulka inaad martaa ka dhow buud dhulkii markay soo socdeen oo gaarigii soo karaystay ayaa roobkii siyaaday waxay noqotay in la istaago waa meel cidlaa oo miyiya buul yaroo meel reer degan ayaa doctorkii cajiibka badnaa dantu ku kaliftay inuu halkaas qabaad ka dhigto uu tegey islaam waayeele baa joogta waxay ku tiri soo soco shaah iyo cabitaan au cababay siisay way iswaraysteen uu warramo wuxuu ku yidhi diyaaraddaasaan la soconno wakaasoo karamkii islaamka lagu yaqaanay iyo soo dhoweyntii man kaana yu'minu biاllaah walyowmi alaakhir falyukrim dayfah ayay ku soo dhoweysay dadka carabtu dhaqankaasi dhaqan wanaagsanay lahaayeen buu ahaa yaa dayfana low surtana lawajadtanaa naxnu الطuyuufu wa anta rabu اlmanzili waxay gabayadoodii ka mid ahaa martida yadaay haddaadna soo siyaarataan waxaadna arki doontaan annagoo annagu marti noqonnay idinkuna aad ka dhigan tihiin dadkii guryaha lahaa oo kale macnaha saanu idiin soo dhoweynayno aad bay u soo dhoweysay markuu u warramay bay iyaduna u warranto waxay tidhi islaan waa yeelow inan ka xanuunsanayaan halkaygaasaan ku allabaryaayo waxaa laygu yidhi nin hebel la yidhaahdo oo doctooro cajiiba ayuunba inankaaga kaana dee itaaliya awoodaan ku gaadho waan waayey halkuu ilaahay ugu keenay buulkeedii dhexdiisii buu ugu keenay isagii baa yidhi ninka laguu sheegayay waa aniga waa ninka martida aad shaaha yar siinaysay oo gurigaaga ku martida walaalayaal ilaahay agtiisa waxa yaalla waxa aynu ka sheekaynaynaa iyo aqbalka ilaahay agtiisa yaalla waxa aynu ka sheekaynaynaa waxba kama noqonayaan